marka le fariinteedu waxay ku socotaa Cabdimaalik Muuse Coldoon iyo dulmiga lagu haystay ku socotaa hadaad markiiba ka baxayso oo dagahaga furaysanayso iyo hadaad si fiican intaad u dhageysato aad walaalada u sheer garaynaysan aday ku taala inaga muslim baynu nahay muslim kana ummadii nabi maxamed alayhi salatu wasalaam ban waliba ka sinahay ummadani waa ummatu dacwa weeyaan inay dawlad xidho waxa kala weyn inuu rabbul alamin ku maalinka qiyaamaha xabiso oo uu ku xidho limaada xaqa wanidiin cadeeyay maxadadka ku sheegi weeyday Muuse Cabdimaalik wax kale oo anagu lagu haysta garan maayo kitaabka Ilaahay maxaad uga hadashay kitaabka Ilaahay subhanahu wa ta'ala maxaad u tiri hal isugu xukumo maxaad kale aad u tiri abaarso aywa meel khaniis ayadoon arkayno oo maalin la arka khadka la soo dhigayo oo maalin la arka kuwii ka baxay sida isku doorinayaan ya dhaqankooda maalin la arka aan arkayno ayaa indhaha ciid la nagaga seedaya ciid markaas la leeyahay waxba ma arkin de waxna ma maqlin de ويوم يناديهم مالن با إلهي لا يناديهم مالن تا إلهي دواقيا كورن بوكير النبي محمد عليه الصلاة والسلام إلهي أين شركائي إلهي محولا يهي أو كوي عبادة عدة كلاوة ذا جنايي أو كوي حكمك أنا نقول لا يهي أنا نقول الضوامد إذا أسود جيي أيقو أنت إسكت طوران حكمك لكن سنة أو با إلهي لي الذين كنتم تزعمون كوا صديدكم هذا هيدين كوا شيكتا هذا هيدين أولا دردارنك كوبال Cabdimaalik baan u dirayaa hadii maqaalkaygaasiba uu ku gaadho oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu ku qadaray inaad dhageysato waxaan ku leeyahay isbir fa inna Allaha ma'as saabiriin sabir ayaa Ilaahay la jira kuwa sabraya Ilaahay la jira ogow dibtan lagu soo marinayo rag way kaaga horeeyeen Khabaab bin Arthi dibtaada dibtiisa ka eego Bilal bin Rawaha ka eego Abdullah bin Hudafa ka eego kulligood li ajli diin ayaa kulligood loo xidhaayay adigana li ajli diin baad u xidhan tahay marka isbir istaciinu bis sabri was salaa inna Allaha ma'as saabiriin wa lanabluwannakum bi shay'in min al khawfi wal ju' wa naqsin min al amwali wal anfusi wat thamarat wa bashshir as saabiriin qodobka labaadna waxaan leeyahay dawladdan la hadlaya awalan laba qodob hadii dad muslimiin oo aqli la ay ku jiraan oo idin kala hadlay wuxuu idin yiri maalinkii ugu dambeysay ku yiri xeeralaya ilaaliyaashan aad samaysateen Ilaahay sokodiisa wuxuu ku yiri awalan kitaabka Ilaahay ugu xukuma hadaad kitaabka leeyahay xukuntid ama dhulmi inta leeg aad geysidna Ilaahay kuguma sallida midan aniga hayn Ilaahay kuguma sallido waa hadal weyn oo qof kasto damiir loo muslim leh qiimeynaya hadalkan in la isku xukumo iyo hadalka gaalada in la isku xukumana ka qiimo badan qof kasta baa u garanaya